shirka Dhuusamareeb 3 ayaa weli si hal dhinac u furan iyadoo aanay wax weyn oo loo jeeda ka soconin magaalada Dhuusamareeb. Kulamo hoose oo gaargaar ah ayaa weli socda, waxaana sidoo kale shaqo aan badnayn qabanaya gudiyada farsamada oo ay ka maqan yihiin kuwa Puntland iyo Jubbaland. Hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa weli loo jeedinayaa talo ku saabsan inuu soo celiyo kaalintiisii dhexdhexaadnimada si uu shirku u badbaado. isku day la doonayay inuu Qorqor saaka ku aado magaalada Garowe ayaa fashilmay. ilo xogagaal ayaa adduunka TV u sheegay inuu ka baaqday dhinaca Puntland oo laga waayay wax xaqiijin ah si uu Qorqor u tago magaalada Garowe. doodaha la xiriira nooca doorashada ayaa weli u socda dhinacyada shirka tagay. ilaa hadda waxaa la isla soo hadal qaaday dhowr nooc oo ka mid tahay qof iyo cod oo ka dhacda magaalooyin kooban iyadoo la diiwaan gelinayo tiro cayiman oo dad ah, in loo laabto doorashadii 2016 oo ergada iyo magaalooyinka la badin doono, iyo nooc saddexaad oo la mideenayo ergada beelaha. madaxweyne Farmaajo ayaa sida la sheegay damacsanaa inuu bari ku soo laabto Muqdisho, shirkana caawa la soo xiro iyadoo la faafinayo waxyaabo kooban oo isku fahmeen dhinacyo ka mid ah maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah. laakiin beesha caalamka oo ka wareysha arrintaas ayaa soo saartay galabta war culus oo la sheegay inuu dib u dhigay isku dayga noocaas ah. saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa ugu baaqday madaxda Puntland iyo Jubbaland inay ka qayb galaan shirka, waxayna ka digeen inaan la aqbali doonin nooc kasta oo doorasho ah oo aan heshiis ku ahayn saamileyda siyaasadda ee Soomaaliya oo shirkaas lagu go'aamiyo. beesha caalamka ayaa soo dhaweysay inay waqtigeedii magaalada Dhuusamareeb ku tageen hoggaanka dowladda federaalka ah iyo qaar ka mid ah madaxda maamulada. waxay kaloo bogaadiyeen shaqada guddiga farsamada ee wadajirka ah ee loo xil saaray soo diyaarinta xulashooyinka hanaanka doorashada. beesha caalamka ayaa ugu baaqday madaxda dowladda federaalka ah iyo maamulada ku sugan magaalada Dhuusamareeb inay xiriir toos ah la sameeyaan dhinacyada kale ee shirka ka maqan oo loola jeeda Puntland iyo Jubbaland. beesha caalamku waxay ku nuunucsatay inay muhiim tahay inay madaxda Soomaalidu ka wada qayb galaan shirka ka socda magaalada Dhuusamareeb. waxay dul istaageen ahmiyadda ay Soomaaliya u leedahay in isafgarad laga gaaro nooca doorashada ee dalka. beesha caalamka oo iyagu jiheeya siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha Soomaaliya waxay mar kale galabta dul istaageen in aan la aqbali doonin nooc kasta oo doorasho ah oo ka soo baxa shirka Dhuusamareeb 3 iyadoo ay ka maqan yihiin qaar ka mid ah saamileyda siyaasadda ee Soomaaliya. ujeedka beesha caalamku ay u soo saartay hadalkan ayaa lagu sheegay inay ugu hortageysay qorshooyin la sheegay inay maleegayaan madaxda ku sugan magaalada Dhuusamareeb. hoggaanka Galmudug iyo midka filla Soomaaliya ayaa hadda ku qasban inay dib u dhigaan xiritaanka shirka iyo inay raadiyaan maamulada maqan. shuruudda madaxweyne Dani ee ah inay beesha caalamku shirka timaado oo ay damaanad ka noqoto fulinta wixii lagu heshiiyo ayaa ah caqabadda ugu weyn. madaxweyne Farmaajo ma ogola taas. Qorqorna wuxuu xilli hore sheegay inaan loo baahnayn, taas oo ka mid ah hadallada uu ku degdegay ee lumisay doorkiisii dhexdhexaadnimada. haddii aanay Puntland ka tanaasulin mowqifkaas, beesha caalamka iyo mucaaradkuna ay meeshooda taagnaadaan, waxaa sidaasi ku duugmi doona wax walba oo macno lahaa oo laga filayay shirka Dhuusamareeb 3.